Jamhuuriyadda Iran oo ka mid ah quwadaha militari ee gobolka Bariga Dhexe ayaa cududeeda militari waxa ay ku tiirsanayd gantaalaha balastikada waxaana la aaminsan yahay inay tahay dalka afraad ee gantaalaha ugu badan haysta dunida oo dhan. barnaamijkeenana waxaynu ku soo qaadanaynaa diyaaradii u horeysay ee dagaal ee Iran gudaha wadankeeda ku samaysato oo dhawaan la soo bandhigayo. wasiirka difaaca Iran Amir Hatimi oo u warramay telefishin ku yaala dalkaasi ayaa waxa uu sheegay inay maalmaha soo socda soo bandhigi doonaan diyaarad dagaal oo cusub oo ay dalkiisu farsameeyeen iyo sidoo kale bandhig ay ku jirto qaabka ay dalkiisu u sii horumariyeen gantaalahooda balastikada si ay uga hortagi karaan labadooda cadow ee Israa'iil iyo Mareykanka sida uu wasiirku hadalkiisa u dhigay. wasiirku waxa uu sheegay in dalkiisu u horumarinayo gantaalihiisa iyadoo looga qiyaas qaadanayo hadba halka ay gaarsiisan yihiin quwadda difaaca gantaalaha ee dalalka cadowga ku ahi. Iran oo laga aaminsan yahay inay haysato in ka badan 400 oo kun oo noocyada gantaalaha ah sidoo kalena gantaale u gudbisay ururka Xisbullah ilaa 150 kun oo gantaal tiro inta la egna ku qalabaysay Suuriya iyo ururka Hamas ayaa barnaamijkeeda balastikada waxa uu warwar ku dhaliyay dalalka reer galbeedka gaar ahaan wadanka Mareykanka xilli ay Iran ku adkaysanayso inuu u yahay barnaamij aasaasi ah maadaama ay ku taalo mantaqad aan xasiloonayn. diyaaradda cusub bandhigeeda waxaa lagu beegay maalinta qaran ee farsamada qalabka difaaca ee dalkaasi oo ku beegan Arbacada soo socota oo 22 bishan August. bilowgii toddobaadkan ayay ahayd markii ay Iran soo bandhigtay jiil cusub oo gantaalaha balastikada ee ridada dhawaa kuwaas oo lagu duqeyn karo baltilmaameedo dhinacyada bariga iyo badabale. sida la ogyahay Israa'iil ayaa dadaal u gashay inay noqoto dalka haysta cududda militari ee dhanka cirka sida diyaaradaha dagaalka oo kale xilli ay Iran iyadu qorshaysatay inay cududda militari ee isku haleynaysa ay noqoto gantaalaha balastikada kuwaas oo qaarkood gaari karaan bagcad kasta oo dalka Israa'iil. Jamhuuriyadda Iran ayaa dhinaca ku tirta xulafada Ruushka hogaamiyo ee ay xubnaha ka yihiin Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi, Hindiya iyo Suuriya oo ay Turkiga iyo Masarna ku dhow yihiin inay ku biiraan halka ay dhanka kalena Iran xubin ka tahay isbahaysiga saddexda wadan ee ugu quwadda weyn dalalka Islaamka oo kala Turkiga, Pakistan iyo Iran iyadoo Turkigu hore u diiday inuu taageero cunaqabataynta Mareykanka ee Iran dhawaana ee Pakistan ku dhawaaqay inaanay marnaba aqbalaynin cadaadis la saaro Jamhuuriyadda Iran. booqashadiisii u horeysana ee dalka dibadiisa uu Tehran ku tagi doono waana isbahaysiga Islaamka ee xitaa haysta quwadda nukliyeerka.